الله وبركاته داودياشا قيمها هي قدر انت مدن ملك استود عالم كجوجتان تلفزيون الصومالي كيبل waxa uu inta laga dooranayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya idin soo gudbin doona barnaamijka yaa mudan waa barnaamij alaaba soo ifbaxa markasta oo doorashooyin ay dhacayaan meel kasto ay ka dhacayaan hadaba xilka iyo darajada dalka waxa lagu aamini karaa qof markaasi shacbiga u arkaan in waxyaabaha ay doonayaan inuu u qaban karo sida daraadeed waxa inta badan la baadi gooba yaa maaragtay lagu aamini karaa xilka qaran ee wadanka markan waa gudoomiyaha baarlamaanka cidda noqonaysa ayaa barnaamijku ku saabsan yahay halka waagi hore ku saabsanaan jiray cidda madaxweyne ka noqonaysa dalka Soomaaliya musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxa ila fadhiya oo isagu kamida ragga ugu cadcad uguna degan runtii kamida sida xildhibaanada intooda badan ay sheegaan Maxamuud Macalin Yaxye waxa uu soo qabtay dhowr jago oo xukuumadii kala duwan ah waxa uu kala soo noqday xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxyaabo badan oo samafalana waa soo qabtay sidaas daraadeed isaga ayaa mid noogu qeexi doona balse marka hore su'aasha aan weydiinayo waxay tahay xildhibaan Maxamuud Macalin Yaxye xilka gudoomiyaha waa xil weyn xil maaragtay darajadii labaad ee wadanka weyn maxaad u dooratay inaad u qabato xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركواد وحان سلام يا أخيارته حرونت تي في فردو إيو لمان أمد الصوماليات ميلو البيع جوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنكر وحان سلام يا حلوان دا قولها الشعب كصوماليات انت هدان وقود بو محادو صوت دونتي حلك قدوميها قولها شعبك وحقيقة مسؤولية علص رنتي أنا فوضين محايا لي قفك قدومينها يو قولها شعبك وقفكي قدوميني مترياشة محوها يو شعبك الصوماليات وقاميني رنتي مسؤولية داس ومسؤولية وين وحانو دورتين وحي تهي maadaama anigu muddo badan aan golaha shacabka muxuu ahayo aan kamid ahaa maadaama burburka Soomaaliyeed markuu dhacay dalka ka dhacay aan dalka ka bixin maadaama aan xog ogaal u ahay shacabka Soomaaliyeed baahidooda dhabta ah meelaha ay ka jirin yihiin meelaha ay muxuu ahayo xanuunada kala duwan ka hayaan maadaama aan dareensanahay maadaama ummadda Soomaaliyeed dawladnimo dhab ay u baahan yihiin taas ayaa kalaftay inaan u istaago si aan qayb ugu qaato ama si qayb ugu noqdo badbaadiyaasha qaranka Soomaaliyeed soo celiyaasha qaranka Soomaaliyeed inaan noqdo ayaa muxuu ahay ugu kalaftay inaan u soo istaago maadaama intaas oo dhan aan xog ogaal u ahay waxa marka laga maarmaan noqotay inaan xilka isku soo taago si aan qayb weyn ugu noqdo muxuu ahayo xalinta أما إن لا يوجد مشكلة الصومالية هيست. وياه ضد بدن أيها وحي ليهن وكما محمود معلي حي بل ضد كإسبر الحرف ده هاجي يو وحيابها أدمان تديه كرتو شعب قال لفت الكود من كستوح اللي بعناك الدورنا يعني شعب قال الصومالي لفت الكود وكوه اللي كرام معاك كده. بسم الله أنيجا waxaan ka shaqeeyay horta waxbarashadeeda hoose dhexe waxaan ku qaatay gobolka Banaadir gaar ahaan dugsiga hoose dhexe muxuu ahayo dugsiga dhexto xaafadoodan ku yaalo xilliga siyaad baa dugsiga sar Jaamac Abdinaasir waxa jaamacadahan waxaan ka mid jaamacad Muqdisho hortaastay waxbarasho way tan labaad burburku markuu dhacay waxaan ahaa macallimiinta Soomaaliyeed kamid ah ubadka Soomaaliyeed tarbiyeeyo oo barbaariyaan ahaa waxaan ahaa qayb weyn ka qaadanay xaaladaha oo runtii degdeg markay yimaadaan wadanka abaaraha ka dhaceen oo dhibaatooyin dabiici markay dhacaan
waxaan ka qayb qaadanay sida dadka masaakiinta loo gurmin lahaa dhibaatada soo saameysay waxaan ahaa dadka taagta daran oo runtii ama la yiraahdo u yaqaanaan Soomaalida danaha gaarka mas dadka naafada dee waa fara badan tahay noolayaasha kamid ah dadka dee naafada noocyadeeda kala duwan oo dadka taagta daran aan mar walba garab istaago caawiyo inaan dadka agoonta ah aan caawiyo kafaalado raadiyo waxaa kamid ah inaan muxuu ahaay waxbarashada ka shaqeeyo oo haddii ay iskuulaad noqon lahaayeen aan iskuulaad sidii lagu dhisi lahaa aan dhiso inaan muxuu ahaay jaamacado sameeyo oo ka shaqeeyo oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed oo awood u heli karin dibadda inay aadaan ayaa waxaan u sameeyay ma dadku u sameeyay kamid aha inay fursado waxbarasho dalka gudihiisa ka helaan mar walba waxaan ahay qof u taagan bulshada Soomaaliyeed caawintooda qof u taagan ayaan ahaa waayahay macnaha marka dadka la caawinayo oo kaba soo qaado kale inkastoo aan aragnay sawirro badan oo maaragtay dadka adikoo caawinaya adoo tagaya meelo kala duwan oo caalamka ka tirsan hay'ado oo maaragtay u tagay marka jaamacadaha aad isdhihi karto qayb libaaxaad ka qaadatay miyay jiraan oo maanta ardayda ka soo baxdana ay badan tahay maanta la dhihi karo tiir kamid ah tiirarkii waxbarashada ayuu iyaga leeyahay inta horta dawladdeena Soomaaliyeed aysan la wareerin waxbarashada deeqaha waxbarasho waxaa lagu bixin jiray hadba dadka mas'uuliyiinta ay u shaqeeyaan waxaa laga yaabaa qof mas'uul ah inuu deeq waxbarasho helo sidii la rabay uusan u isticmaalin maadaama hay'ad la xisaabtamaysa aysan meeshii oolin marka intaysan dawladda hadda sida rasmiga aysan ula wareegin deeqaha adduunka laga helo waxaan ka shaqeynaa inaan socdo aan dibadda aado oo mesela Turkiga aan tago inaan tago Suudaan tago wadamadaasi muxuu ahaay Afrikaanka aan tago aan u raadiyo ubadka Soomaaliyeed sidii waxbarasho oo deeq waxbarasho u helaan marka runtii xillidaas dad badan oo Soomaaliyeed oo kala duwan ayaan waxbarasho waxaan ugu diray sida Turkiga oo kale sida Suudaan oo kale Masar oo kale marka waxbarashada qaybaheeda kala duwan asaasiga ilaa jaamacadaha qaybahooda kala duwan marka fursadahaasna waxaan u sameynay in la caawiyo ummadda Soomaaliyeed ama waxbarashada gudaha jaamacado badan oo runtii soo kacay ayaa jira aan qayb lixaad aan ka qaatay waana shaqeeyaan runtii si fiican ay u shaqeeyaan marka taasna waa shay wax macruuf ah loo yahay inta badan walwalka haya dadka waxaa kamid ah in nin kastoo gudoomiye baarlamaan noqda in mararka qaarkood musuqmaasuq lagu eedeeyo in mararka qaarkood waxa danta dadka iyo dalku ku jirto inuusan inta badan waxba ka qabanin marka uu is sharaxayana halku dhigyo sameystaa uu leeyahay halku dhigaygu waa sidaas sidee u suurtagelaysaa in aad nidaamka iyo dastuurka iyo baarlamaanka aad u ilaaliso waa mahadsantahay xasanow horta qof walba taariikhdiisa waa qoran tahay annagoo hay'adna xisaabanaysa aysan jirin cid wax noo dhiibatay aysan jirin ayaan ummadda Soomaaliyeed intaan wax u raadino sadaacada oo alla ka cabsi leh aan ugu keenaynin marka waxaan isleenahay xilkan hadda aan doonanayn ma ahan inaan ummadda Soomaaliyeed xuquuqdooda aan ku gamood falno ma ahan dana gaar ah inaan ku qabsano balse waxay tahay waxa la isweydiinayo dalkan wuxuu u baahan yahay qof daacad ah oo daacad u noqdo maxaa yeelay waxa lumay daacadnimadii aan luntay marka waxaan isleeyahay dadka ugu daacadda ah marka la eego anoon wax idaba taagan aan la arag dastuur gooni oo madka rabbaaniga Ilaahay soo dejiyay amar igu siinay inaan dadkayga khiyaamin ifaraayo oo marka laga reebo Allah subhanahu wa ta'ala muraaqabadiis marka laga tago kaas mooyaan wax kale oo idaba taagan aan la arag ayaan weliga musuqmaasuq lagu sheegin aan ka shaqeynin macadallahi 276 iyo 62 oo taagan oo aqoon-yahano ah oo muxuu ahaayo indhaha saanka uga hayo oo xeerkii iyo sharciga dalka yaalina oo muxuu ahaayo ku dul saaran yahay ilaahayna ku muraaqabeynayo ismalahi imaad khiyaamo ku sameeysaa isma dhahayo marka waxaan isleeyahay dadka musuq qof sameeyay oo waxay ka dhigan tahay qofka marka koowaad Ilaahay uusan ka cabsan qofka Ilaahay ka cabsada ma sameeyo bani aadamku waxa ilaaliya awoodan basharka awood ku weynaa jirta marka kaliya tahay rabbi baa ku ilaaliya marka qofku waxa rabo markuu kaliya yahay xataa aan loo jeedin inuu Ilaahay ka cabsada la rabo waayahay
waxaan siinayaa dhalinyarada caawo kasoo qayb gashay barnaamijkan oo u taagan in ay su-aalo weydiiyaan waa mid kamid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya wuxuu u tartamayaa xilka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayuu u tartamayaa waxyaabo badan adoo ka fakaraya inaad caawo su-aal weydiisaa muhiim bay tahay sababtoo ah uu soo socdaa hadduu guddoomiye noqdo yah ma sidii isqaqabsigii iyo balaaya dhacaysa mise waxaa loo baahan yahay in la helo nidaam ka duwan kaas marka su-aasha koowaad yaa jecel in uu weydiiyo musharaxa xilka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya magacaaga igu bilow بسم الله مقعيق وعبد الرحمن آدم فرح aad buu u mahadsan yahay musharaxa guddoomiyaha waxaan rabay inaan wax yar weydiiyo su-aashayda waxay tahay inaan weydiiyo musharax maxamuud macalin yaxye waxaa jiray guddoomiyaal badan oo soo maray dalka kuwaasoo marxalado kala duwan kusoo shaqeeyay maxaa isleedahay casharada ka badartay oo qalalaadkii soo dhacay iyo waxyaalihii dabcan dhibaatooyinka ama isqa qabsiga keenay maxaad ka bedeli doontaa su-aashan qabo waa midaas okay waa mahadsan tahay yaa kale magacaaga igu bilow mudanaha su-aashaan weydiin raba waxaa waaye dastuurkan aan la dhamaystirin waqti intee leeg ayuu ku dhamaystiri karaa maadaama dastuurka weli uu ku meelgaarya waayahay dastuurka intee lagu dhamaystiri karaa haye yaa kaloo saddexaad magacayga waa maxamed nuur xasan mudana guddoomiye su-aashaa ku weydiina waxay tahay guddoomiye jawaari haddii uu meesha ka baxay maxaad is leedahay waad kaga duwnaan doontaa waa su-aasheeda koowaad su-aasha ku xigta waxay tahay golaha shacabka oo matala shacabka Soomaaliyeed haddii aad ku guulaysato guddoomiyahaasi guddoominimada si dhab ah ma ugu shaqeyn doontaa matalaada shacabka Soomaaliyeed way aad baan mahadsantihiin guddoomiye saddexda su-aalood Cabdiraxmaan Muxudiin Maxamed ay ku weydiiyeen ayaan jecelahay bal inay si u kala koreeyaan inaad u qaadato mid waa isqab qabsiga maxaad ka baratay guddoomiyaashii macnaha adiga kaa horreeyay maxaad ka baratay waa mahadsan yahay walaalkay runtii qofka markuu soo shaqeeyo dhan arday buu ka yahay waxbuu baranayaa marka waxaan goobjoog ahaa wax fara badan guddoomiyaal fara badan baarlamaan soo shaqeeyey waxaan dareemayay baahida xildhibaanadu ay dareemayeen tabashooyinkoodaan ogaa oo anigu aan ka mid ahay aan islahaa tolow inay ku fiicnaan lahayd shaqada golaha shacabka saan loo dhigo shuruucdii aan lagu xadgudbayay aan dareemay markaasan meel looga dhacay waxaasoo dhan wixii aniga aan ka warhayay haddii ay noqon lahayd fasaad idaari hadduu jiro maamul iyo fasaad dhaqaale hadduu jiraba intaasoo dhan waa ii noodgaraysan yihiin wax badan baan ka bartay waxyaalaha waxay noqon doonaa aan aad iyo aad isaga ilaalin doono insha allahu tacaala taas meeshaan uga baxaya maxaa yeelay god oo qofkii kaa horreeyay kusoo dhacay inaad ku dhacdid oo wadadii aad martid waa doqonnimo wixii kii kaa horreeyay ku dhintay adoo fiirinaya wadadaas inaad martid waxay ka dhigan tahay bimacnaa ninka caqli ma lahan qof fahmay ma ahan marka arrintaa ayada aad iyo aad ayaan ugu digtoonan doonaa biidin illaahi tacaala su-aasha xigta waxay ahayd dastuurka muddo intee leg ayaa lagu dhamaystiri karaa dastuurka dhamaystirkiisa wuxuu u baahan yahay in hogaamiye daacada an loo helo oo ku hogaamiye shacabka Soomaaliyeed dastuurka u baahan yahay waa nooce dastuurka inuu qaadanayno noocuu noqonaya waa ku meel gaar wax haddii noo qoran maxaa Soomaali u dana maxaan sadan u ahayn dastuurku suu u noqonaya dastuur Soomaali mideeyo oo Soomaali oo dhan masaalixdeeda isaga arto dastuurku suu ku noqda dastuur khayraadka dadka u qeybay ay ku qanci karaan marka arrimahaas waxay u baahan yihiin waqti badan iyo fikir badan iyo dhaqaale fara badan iyo khubaro fara badan in la geliyo intii lagu mashquuli lahaa waxyaalo kale
waxaan ka shaqayn doonaa dal aan dastuur lahayn saxa sharci ma noqdo dal marka awooddeedu waxaan isugu geyn doonaa aan priority-ga siin doonaa sidii dastuurka ku meel gaarka ah dastuur Soomaali u qalma lana jaan qaadi karo horumarka iyo teknolojiyada adduunka ku tallaabsaday inuu noqdo ayaan ka shaqaynayaa waqtigiisana ma badnaan doono maxaa yeelay xilliga hadda ka hartay waa 3 sano oo wax dhiman muddada ka hor inaan dhameey ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajeynay hadduu ilaahay ii qoro aan meesha tago su-aasha maxamed professor gudoomiye jawaari maxaad uga duwanaan karaysaa runtii jawaari nin baarlamaanka soo hogaamiyay buu ahaa wixii markaa awoodiisa ahayd uu ka sameeyay aniga horaan su-aasha horaan aan u maleynaya inaan ugu soo jawaabay anigu waxaan idhi fashaladii wada hogaamiyaashii hore ee baarlamaanka ku yimid aad baan isaga ilaalin doonaa waxaan u maleynaya su-aasha inay intaa ku dhintay waayahay yaa kale oo su-aal qaba magacaagana ku bilow بسم الله مقعي هذا كبلا وعدنان مختار موسى وعن كتير سنة لأن كنا المجال مقدشو وأنا مهد علمي قدوميها أما حلي بانكا مشرحة قدومينما وحربا إن سؤال شيء ذا ويديو حيكون صار انتهاي هدي أتقبضتو حلك قدومينما محاكا قرشيسا لأن يرد صوتو markuu qof uu xil oo u tartamay waxaan soo aragnay dad soo tartamay oo xil u soo tartamay waxyaabaha ugu badan mid boontiga ay saaraan waxa ah in dhalinyarada wax u qabanayaan haddana ma u jeedno wixii ay soo sheegeen inaysan qabanin marka maxaa ka qorsheysan dhalinyarada waa maasai waaye okay yaa kale oo la siin karaa هل سؤالودنا ويديسان مدام دور تهين أيان آدو جعلان لها مقعاقان يقول بالله هايه بسم الله الرحمن الرحيم مقعاق عبد الولي عمر محمد دلينتا مقالة مقدشو حكبرتانا كميدا هاي وذن حلبانا وحاورت فرحاد وين نوعا inaad adigoo maxamuud macallin yaxyay ah oo aan ku naqnaqaano xilibaan in badan soo ahaa dawladda ka soo shaqeeyay wax badan u soo qabtay bulshada Soomaaliyeed dhanka samafalka iyo dhan walba iyo dhanka siyaasadda intaba anagoo taa ku faraxsan haddana waxaan isleenahay waxa taa ayadana sii dheer inaad xilibaan in badan soo shaqeeyay taa aad dareemi kartaa bulshada baahideeda iyo xilibaanada baahideedaba intaba baahida noogu badan in qabno waxa weeye mar labaad aan rabay inaan soo celiyo hore lagu weydiiyay su'aashaasi sharciga qabyada ah in badan in la dhameystiraay la holin laayahay taa waan kaaga fadhinaa si qurux badan waad nooga jawaabtay aadna waxa noo dhibaayay inay tahay taas aan rajaynayda qodobka labaad ee aan su'aasha aan weydiinaa waxay tahay waxaa jiray jawaari iyo xukuumaddiisii oo baarlamaanka markii uu joogay dhalinyaro uu ugu talagalay inay noqdaan dhalinta siyaasadda ka geli doonta golaha baarlamaan ah oo hoose oo aan ahayn yani loo tababari doono arrintaas horaa loo sameeyey haddana meel ku dambeeyay ma naqaan idan arrinta ayada maxaad ka qaban kartaa si loogu tababaro dhalintan qaabka siyaasadeed iyo hoggaanka siyaasadeed iyo sharciga intaba aad u mahadsantahay kaaga fadhina waayahay aad baad u mahadsan tahay waa tahay su-aalaha kale dhalinyarada kale ayaan siin doonaa insha allahu tacaala adinkoo magaciinana ku bilaabaya هل السؤال نيان لقى بدن هي سؤال مقعة كبلو بسم الله مقعي وعبد الكريم محمد كاهي عدنان عبد الكريم يس مدن حلو أنا هرت أدي هذا ما تنتصيد وحنا نصور فريسته أنا سؤال كويدينا سؤال شو كويدينا وحوايا حدان نخطو هذا كقول يستحيل كان قدومين ما قدوميها قلها شعبك معك على قرش سن دور شذا لو كن لرجينا لا تاني كوجا يا قفي عط محك عاقش يسن ما مسديه كرتا وفوضين كرتا دور شاس أو المدحوينا صوص على دورتان شعب كمسيف فوضين كرتا مسميه بي وقرش مكا مجرى عاد ودي جسم داس وهي هذا ما صدق قلت مية هي إذا كنت بنينا ضلني رضا محك عاقش يسن أيها أيش كوات ضلني رضا هرت dhalinyarada Soomaaliyeed waxa
udub dhaxaadka jiritaanka Soomaaliyeed jiritaanka bulshadeena Soomaaliyeed waaye dhalinyarada runtii haddaan la diyaarinin aan laga fikirin mustaqbalkooda iyo noloshooda iyo waxbarashadooda iyo in xirfado shaqo loo abuuro haddaan laga fikirin waxaa dhacay waxaad ogsoontihiin maxay dhalinyarada ummad haddii la rabo inay badbaado waxaa laga dareemayaa dhalinyaradeeda marka dhalinyarada waxaa iga diyaarsan qorshooyin fara badan saad ogsoontihiin baarlamaanka horta asugu ma ahan waa sharci dejiye baarlamaanka laakiin annagu waxaan diyaarinaynay xeerkii ama xeerarkii muxuu ahaayo maalgashiga dalka lagu sameyn lahaa waxaan dalkeena waa dal qani ah faqiir ma ahan waxaan ka mid nahay dawladaha ugu qanisan adduunyada haddana waa dal dahan oo aan weli la isticmaalin kheyraadkiisa marka waxaan u diyaarin doonaa marka koowaad kheyraadkii dalkan uu lahaa sidii loogu faa'iideyn lahaa ee loo soo saari lahaa habraaci sharciga ahaa oo loo mari lahaa sidaan u diyaarin lahayn waxaan xukuumadda oo runtii u xilsaaran fulinta shaqooyinka oo muxuu ahaayo shaqooyinka ayaga ayaan ku dabageli doonaa inay fuliyaan mashaariic ay ku horumarinayaan dhalinyarada inay diyaariyaan waxaan u diyaarinay muxuu ahaayo xukuumadda aan la kaashanaynaa in waxyaalaha maanta dhacayo oo dhalinyaradeenna Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda iyo oo tahriibayo meel walba ku dhawaataysan arrinka in laga baxo dabcan awooddeenu way yartahay shaki kama taagno laakiin dawladda hadda jirta ama xukuumadda qorshe ay ka samaysay barnaamijkeedana waa u socdaa laakiin waxaan rajaynaynaa barnaamijkii hore u diyaarisay xukuumadda gacanta ku haysay inaan muxuu ahaayo ku dhiirigelino siday ku xaqiijin lahayd maxaa yeelay dhalinyarada ayada muxuu ahaayo waa jiilka beri ina bedeli lahaa waa jiilka dalkan hogaamin lahaa in laga fikiro oo qorshe loo sameeyo waa laga maarmaan qofkii muxuu ahaayo xoogaa wax barta ama wax fahmo dalka hadduu ka cararo nasiib darro ay noqonaysaa marka taas waxaa aan dhihi lahaa qorshaha noogu yaal waxay shuruucdii oo dhalinyarada lagu maalgelin lahaa dhalinyarada muxuu ahaayo sharci baa dhalinyarada sportska waxaan u maleynayaa sharcigaas in wasaaradda dhalinyarada sportska wax badan gacanta ku haysay sharcigaas sidii looga dhigi lahaa sharci oo tayo leh oo dhalinyarada Soomaaliyeed u qalmo inuu noqdo tan labaad su'aasha labaad oo walaalkii waxay ahayd aydan waxaa jirta program loogu talagalay lagu diyaarinayo xildhibaano dhalinyaro taa ayada saad ogsoontihiin xildhibaano fara badan ayaa baarlamaanka soo galay oo dhalinyaro ah oo haatan ku jira baarlamaanka taas waxay tahay bilow waxyaalaha qorshaha igu jiro waxay tahay xarun lagu tarangareeyo ama lagu tababaro baarlamaanka dhalinyaradiisa inaan diyaarino oo gaar ahaan dadka xildhibaanada soo galay kaliya ayaga ma ahan in dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhammaan lagu diyaariyo inay noqoto oo lagu tababaro waxa way qorshaha aan hadda diyaarinay ay ka mid tahay insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa in haddii Ilaahay ugu guuleeyo wax badan ayaad ka dareemi doontaan taas waxa uu daliil aniga ilmaan dhalay waa dhalinyaro idinkoo kale beledkaan ay joogaan waan awooday ilmahay meelahaas inaan geeyo ma geeyin waxaan leeyahay maadaama shacabkii aad xilka u qaaday maadaama muxuu ahaay ay joogaan ilmahooda halkan wax ku baranayaan ilmahaaga waxa la bartay horta intaasna waa ku bishaareynay markii ilmahayga waxaan u diyaariyay aan ugu talagalay ayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ugu talagalay wayna iga tashanayaan insha Allah ta'ala doorashada qof iyo cod waxay u baahan tahay in amni dhameystiran la helo waxay u baahan tahay bulshada Soomaaliyeed in sax loo tirakoobo arrimahaas iyo arrimo kale oo fara badan ayaa hor yaalo laakiin go'aan golaha shacabku yaalo golaha shacabka ayaa siyaasad ka soo saari doona doorashada 2020 ay noqon doonto ayaa muxuu ahay aragti ka soo saari doona aragtida golaha gaaro baan anagu hogaamin doonaa laakiin aragti gooni iyo anigu aan keenay ma jirto laakiin waxaan dareemay culeysyo fara badan inay jiraan haddii lagu guuleysto amniga hadda aynu rajaynayno xukuumaddeena inay xaqiijiso Soomaaliya oo dhan deegaanadeeda kala duwan nabad ku soo dabaasho waxaan rajaynaynaa
intaa aydaa suurtagal ilaahay ka dhig waan rajeynaya insha allahu tacaala waayahay waxaa jirta arrin aad la isu weydiiyo oo ah qofka ku guuleysta xilka guddoomiyaha baarlamaanka mararka qaarkood wuxuu ku milmaa xukuumadda ama madaxtooyada oo kale oo ku milmaa sida inta madaxweynayaashii lasoo maray xukuumadihii lasoo maray ilaa iyo markii carta la sameeyaan ka hadlaya inta badanna waxaa la dareemaa ajente culus oo yaalla oo aan madaxtooyada ama meelo badan laga rabin ayuu bedelayaa markaasuu wuxuu keenayaa iyadoo wax weyn yaallin ayuu wuxuu leeyahay maanta nadaafadda ha laga hadlo isleeyahay hadduu doono iska dhahaya arrimaha noocaas oo kale ah sidee uga madax banaaneyn doontaa xildhibaanada baarlamaanka horta runtii soomaalida waxay tidhaahdaa fuli xantiis ma waana la xantaa laakiin hay-aduhu waa kala madax banaan yihiin iskaashi baa ka dhexeeya labada gole golaha fulinta iyo golaha shacabka sharci dejinta iyo laanta garsoorka iskaashi baa ka dhexeeya wada shaqayn laakiin inay isdhexgalan maahan way kala madax banaan yihiin hay-addan waa hay-addii la rabay inay la xisaabtanto muxuu ahaayo wixii la fulin waa ama sidii loogu talagalay inay u fulaan la xaqiijin waayo waa hay-addii dabageli lahayd marka waxaan aad iyo aad u ilaalinayaa kala in la kala madax baneeyo hay-adaha dastuuriga ah laakiin iskaashi wada shaqeyn ah sida maslaxadda qaranka ay ku jirto inay ka dhexayso ayaan anigu rabaa oo siyaasaddeedu tahay maxaa yeelay haddii kale waxaa laga baxaya wixii naloo dhiibtay annaga shacabka soomaaliyeed ba mas-uuliyaddina saaray mas-uuliyaddina saaray waxay tahay inaan ku metelin wixii maslaxadooda ama masaalixdooda ah xukuumaddana annaga mas-uul waxaa u dhiibay golaha shacabka ayaa ansixiyey xukuumadda marka la ansixinayo lasoo magacaabo la iskama ansixiyo shaksi lama ansixiyo burgaraan ba la ansixiya mashruucay keed waxay leedahay waxaasaan qabanaya waxaasaan qabanaya waxaasaan qabanaya waxaasaan qabanaya xukuumadda iyo muxuu ahay golaha shacabkan waa saaxiibo col ma ahan laakiin burgaraamkii loo ansixiyey ay xukuumaddu tiraahdo 1 2 3 intaasaan qabanayna waxay tiri ay yiraahdaan waa in baarlamaanku uu yiraahdo wixii la idin dir maxaad ka qabateen ma fuleen maxay u fuli waayeen la xisaabtan ay ku leeyihiin laakiin ay isku milmaan ma aha waayahay waxaan rabaa su'aalo kale inaan ku weydiiyo oo ay ka mid tahay muxuu ahaa inta badan wadamo ku faa'iidana way jiraan sida Kenya oo kale inay ku faa'iideen aan jecel inta badan waxaa dhalinyarada shacbiga Soomaaliyeed waxay yiraahdeen waxaa fiican in golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka la kala saaro oo xubin ka tirsan golaha baarlamaanka in aanay golaha wasiirada ka mid noqon hadduu golaha wasiirada ka noqdana oo xildhibaanadiisa iska casilo adigu taa ma u ololeynaysaa runtii qofka xildhibaanka ay wax oon ka ahayn wasiir ma qaban karo xilka kaliya uu qaban karo waa jago wasaaradeed wax kale ma qaban karo maadaama wax kale uusan qaban karin anigu waxaan qabaa haddii halkaa mas-uuliyad ma qabi in xildhibaanka meesha lagu xayiro laakiin duruufaa jiro duruufahaas marka laga gudbo baarlamaanka Soomaaliyeed asaga go'aansanaya sida maslaxadda ay ku jirto waayahay waxaan siinayaa yaa kale dhalinyaradan rabnaa inaan siino insha allahu tacaala haye magacaaga ku bilow bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdixamiid cabdikariin xuseen aad aan ugu faraxsanahay runtii musharaxa waxaan ahay shakhsi aqoon fiican u leh intaas kadib haddaan ka gudbo waxaan rabaa guddoomiyaha inaan weydiiyo mudane haddii aad ku guuleysatid xilkan maxaa kaaga qorshaysan siyaasadda arrimaha dibadda oona wada ognahay dowladda Soomaaliya wadamo badan oo intervention ku haya inay jiraan maxaa kaaga qorshaysan inaad ku horumariso siyaasadda arrimaha dibadda waana mahadsantahay waad mahadsan tahay yaa kale bismillahi raxmaani raxiim xasan cadde walaalkay waa mahadsan tahay mas-uulka u taagan xubinta ama guddoomiyaha baarlamaanka cabdiqaadir macalin yaxye sidoo kale waad mahadsan tahay waxaan rabnaa marka koowaad
inaad noo kala caddaysid programkan 25 sano nus qarniga rubac qarniga ah ma garanaysaa aan suuragal u noqonin dastuurna ahayn in xilka lagu qaybsado A iyo B iyo C taasoo dhigayso xubintaa hadda u taagan tahay in ay reer qurac ama reer qansax u taagan yihiin dastuurkana uusan noogu qornayn sidee ula damacsan tahay in yoolka meeshaas taagan aad ka gudubto oo aad darajo u soo istaajiso dad kale inay jaanis u helaan aqoontoodina ay u leedahay in ay guddoonka baarlamaanka u tartami karaan oo aysan noqonin reer qurac kaliya inay u tartamaan guddoonka baarlamaanka su-aasha koowaad waa taas su-aasha labaad waxaan u baahanahay inaad noo caddayso guddoonka baarlamaanka ma aragno xildhibaano iyo guddoomiye baarlamaan ka hadlaya hantida qaran ka hadlaya mas-uuliyadda qaran waxaan aragnaa kaliya mas-uul walboo meesha soo koro inuu waqtiga ku lumiyo waxaan waqtigeeda loo taagnayn maxaa loo waayay mas-uul ka hadla dastuurka inuu dib u eegistiisa ka hadlo dastuurka dib u eegistiisa wasaaraddanaa u xilsaaran wasaaraddii waxay ka dhigatay mashruuc iska socdo 12 sano sii marayaa iska qoristeeda masarna waxaan ognahay dastuurkeeda inuu nin aqoon-yahana 24 hours gudaheedu uu ku qoray dal dhan dastuurkiisa mashruucan iska socday aanan soo jarista lahayn ee dastuurka iska furan haddii uu ilaahay kuu kaso inaad guddoomiye baarlamaan noqotid sidee ka damacsan tahay inaad usoo afjartid mase mashruucii dabada jawaanka ka furnaayaad nooga dhigi doontaa oo la isaga xeebeysanayay bahasha ay iska socotay su-aashii saddexaad ee ugu dambeysay waxaan rabaa haddii aad noqotid mas-uul ilaahay u kasay kursiguu raadinayo dhalinyarada waddankan waa dhalinyarada 70% lagu tiriyo saameynta iyo dhibaatadana ayaga ay soo gaarto sidee uga bedeli kartaa in ay jaanis u helaan guddoonka baarlamaan sababtoo ah ninka odayga ee xildhibaanka loo soo doortay mana akhriyo mana qoro muxuu dastuurna ka ansixiyaa muxuusana dastuur diidaa magaciisa iyo saxiixiisaba intaba ma garanayo waxaa lagu soo doortay qaab ergo sidee aqoon-yahaniinta iyo jaamacadda fursad loogu siin karaa inay ayaga qoraan akhriyaan dastuurkana arrintiisana masiirkiisa ay ka hadlaan aad iyo aad aa umahadsantahay waayahay waa dhowr su-aalood weeye waxaan jeclahay hal su-aalood kusoo kooba waa badan tihiin gabdhaha maxaa dhacay su-aalo ma qabtaan miya doorka haweenka xataa looma doodayo haye haye magacaa ku bilow بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومحمد غفار محمد وشرفنا ما أنت لكلنا مرشح محمد معالي يحيى أنا كورونا يس أوت بايوغرافيكي سنين كاسين وما شاء الله وحبرتي وقيمية قدرين برشلونة مدن سؤال أن ودينا وحواي وكورهنا سياسة مثل فيرنا parliamentary سوماليا وهالك ودن وإيش مثل إيه حاجة corruption كفائدة 1 مليون وأجنا واحد والبو maxaa ka qorsheysan baarlamaankan mar walba iska socoto barnaamijkooda oo ii sheeg inay mar walba keenaan mooshin oo illegal ah si ay ka u aangareeyaan mid labaad aan su'aasha labaad inaan ku weydiiyo waxa waaye markii la eegayo dhankan oo electionka model electionka waa ka warhaynaa hadda waxaa la keenay list oo ka qeexayo la dhahayo professional election oo open close openka waxaa waaye in dadku wax codeeyaan close-kana waxaa waaye inay baarlamaanka codeeyaan maxaa ka qorsheysan maadaama aad murashax tahay parliamentary maxaa ka qorsheysan anoo ka warhayno Soomaaliya meesha joogto ma open ma noqon karaa ma close ma noqon karaa ma baarlamaanka waxa dooranayo ama hadii kale waxa dooranaya shacabka waa maasantahay okay waa su'aalo waa badan yihiin laba su'aal oo kamid ah saaxiibkan su'aalo aad u wanaagsan magacaaga muxuu ahaa Abdurrahman Sanna Xalasina ambassadorka gadaal ka yimid Malayna waayahay su'aalaha qaar waa laga jawaabay laakiin su'aasha ugu dambeysay ay su'aal labada su'aal ugu horeysa ayaa muhiim ah haye waa mahadsantahay ambassador waa mahadsantahay runtii siyaasadda arrimaha dibadda ee qofka ay weydiinayay siyaasadda arrimaha dibadda horta siyaasadda arrimaha dibadda waxaa inooga mas-uula wasaaradda qaabilsan xukuumadda ayaa mas-uulka ah hagaajinta iyo qurxinta calaaqaadka aynu la leenahay adduunka intiisa kale marka waxaa laga doonaya qurxinteeda iyo hagaajinteeda mas-uuliyaddeeda xukuumaddana
waxay u xil saartay wasaaradda arrimaha dibadda la yiraahdo baarlamaanku shaqo kuma laha laakiin baarlamaanku wixii khaldamuu saxa taas halkaasaan ugu gudbayaa maxaa yeelay waa caddahay siyaasadda arrimaha dibadda waxa weeye inaan wanaajino xiriirka aan dowladaha jaarka iyo dowladaha kale aan la leenahay caalamka guud ahaan qolaan col lanahay ma jirto dal waxaan nahay burburay oo dhibaataysan waddan walbana waxaan u baahanahay inaan kaashano waddan walba waxaan u baahanahay wixii masaalixdeena ay waafaqayso danteena ku jirto inaan la ka kaashano marka taas waxaan u dhaafaynaa xukuumadda iyo wasaaradda ku shaqada leh laakiin lala xisaabtamayo haddii xoogaa loo horaan u sheegay sixitaan anagu leenahay sixitaanan leenahay wixii khalal yimaado inaan saxno maxaa danta dalka u dana su-aalaa la weydiinayaa marka wax yimaadaan waxaa leeyahay arrintaas maxay ku dhacdo waxbaa laga weydiinaya laakiin waxaa iskale wasaaradda xukuumadda iskale su-aashii kale koowaad ku weydiiyaa inaan qurxiyo waxaan ku qurxinayaa hal beel macnaha 4.5 ka hadlay ninkan aad baan u fahamsanahay laakiin gentleman agreement-iga ayaa 4.5 ka tilmaamaya waa mid aan qornayn marka kii qornaa baa laga tegay mid aan qornayn ayaa la qaatay ayuu ka wadaa wax qoran lagama tegin dastuurkeena wuxuu sheegayaa horta mushkiladan dhan waxay nooga timid colaadii dhacday is-aamin la'aantii Soomaaliya ka dhacday in la kala guuray waddankii la kala qaybsamay qofka tuuladu ka soo jeeday tagay waxaan hadda raadinayn wadadeeda ku sii taaganahay waxa weeye war sidee loo abuuraa Soomaali isu kala soon oo is-aaminta oo dib u heshiisiin dhabaan dhaxdooda loo dhigaa waxyaalaha aniga aan ku fikiray ka mid ah waxyaalaha la isku haysto Soomaali isku fahmi lahayd maxay yihiin sax in loo gurfeeyo taas marka waxay keentay awoodihii dalka in marka lagu heshiiyo la yiraahdo aan kala qaybsan wax ku heshiin ilaa ay saaminaada ka soo laabato dastuurkan wuxuu qeexayaa awood qaybsiga waa in si cadaalad leh balance saas guud uu sheegaya laakiin ahad qarameedkii la soo oo kan ka horeeyay waxa ku qornaa 4.5 sidii ugu qornaa marka waan ku sii soconaa marxaladaas waa laga sii gudbahayaa qabiilka waa laga sii gudbahayaa hadda saad ogsoontiin waxaan ku nimid deegaan doorasho meeshii shalay hal qof in soo qorahay waxaa la yiri sanduuqa la dhigay qabiilkii baa isku noqday reerkii baa isku noqday qolo walba waxa ku leedahay waxay soo la soo baxday matalayaal sanduuqa xagga la waa lagu tartamay sidaas lagu soo baxay hadda mesela deegaankan ka soo jeedo shanta Soomaali baad ku tartamaysa soo xad garateen maan shanta qaybood oo hadda Soomaali hadda shanta xisbi ay u qaybsan yihiin kulli sanduuqa la wada dhigay marka horta wixii waan ka guureynaa wax baa naga khaldamay anaga burbur baa nagu yimid hal mar ma dhismi karo wadadii baan haynaa waan ka gudbaynaa biidin Ilaahay tacaala waqti waxa la gaari doonaa qof iyo codkiisa inta aanu sanduuqayga dhigto muxuu ay Garowe ama Boosaaso ama Kismaayo dhigto ama meel kale oo Soomaali kamid ah geysto sanduuqayga oo Soomaalinimo la soo doortay la gaari doonaa taasna waxaan rabaa inaad ku hamidaan dhalinyarada cudurkaas waxaan ay ka fiyow yihiin taasna idinkeedu ku jirta inaad ka shaqeysaan oo Soomaalinimo aad u fikirtaan idinka la idinka rabaa laakiin anaga waa soo dharaan dharinina waxaan keeni doonaa waqti marka Soomaalinimo la isku aamino oo Soomaalinimo la isku doorto waxa inta wehelay waxa bilowday axzaab xisbiyaal lagu dhawaaqay ayaa jira hadda baarlamaankayga hadda jiro waa ka duwan yahay kuwii hore waxa sameysmay kutulooyina sameysmay gruubiya sameysmay oo muxuu isku xiran ma ahan beel ma ahan waxa gruubiyo kala duwan oo shanta qaybood ka soo jeedo waxay ku heshiyeen in ilaa xisbi baa loo socdaa marka wixii wadadan si hayna insha Allah yaa la degdegin waynu gaari doonaa Ilaahay haduu ilaahay su-aasha labaad hantida qaranka ya hantida qaranka saad ogsoontihiin baa horta burburka soo dhacay shacabkii waa qof walba horta meeshuu gaaro degay qof walba meeshuu doono iska degay horta hanti badan ama qan arintaa waxay u baahan tahay horta deganaansho dhameystiran in la helo deganaansho dhameystiran in la helo waa laga maarmaan maanta haddii la baxo la yiraahdo meesha meel hiblaayo oo dawladda lahayd waa la deg laga kiciyo waxa dhacay waad ogsoontiin soo xad gaartay ma isla markii waxa waay xabadi iyo meel aag waxaan ka sheekeen karna ma marka waxaan u baahan horta deganaansho dhameystiran la helo deganaansho dhameystiran marka la helo ayaa wixii hanti qaran maqan si sax loo raadin karaa
laakiin hadda waxaan ku guuleysanay oo runtii inkastoo aan isleeyahay weli ma dhamaystirno qof gurigiisa la haysto oo hebel in hebel la yaqaano oo gurigiisa in hebel haystay hadda ma badno waxaan u maleyn wax badan ayaa arrinka asaga wax laga bedelay markii isbedel waa socda waxaa la yiraahdaa roob hal maalin kuma dhisantaa la yiraahdaa waan soconaa marka isbedelka tartiib ku soo socda marka waan gaari doonaa si kaamil ah oo dhameystiran inaan hantida qaranka mar u soo celino waayahay labadan su'aal oo kale hore uga jawaabtay oo iska dhaaf su'aalaha kale aan rabaa inaad gasho baarlamaanka inta badan waxaa la sheegaa mooshin marka la keen inuu ka faa'iido sida uu sheego 1 milyan meesha marmarka qaarkood in laga faa'iidi karaa la sheegay marka oo mooshinkuba uu yahay waxyaabaha markii xoogaa xildhibaanadu ay jeeb wareer ay dareemaan inay mooshin ku kiciyaan marka ka warantaa horta aniga aragtidaas ma qabo aragtida ayada ma qabo baarlamaanku waana laxantaa shacabka ma ogtahay qofkii derbigan gurigan gadaashiisa jooga ama banaanka ka jooga mar walba tuun uu iska qabaa wuxuu leeyahay gurigan dadka ku jira alla ila noloshooda caadi ma ahan saasi wax inuu iska suuraysto laakiin anigu ma qabo baarlamaanka mooshin markuu sameeynayo meel eewra mooshin baarlamaanka ma sameeyo wax baa jira wax u baahan in la xalliyo taagan meesha oo mushkilada u baahan mushkiladaas in wax laga qabto oo taas ayada shacabka Soomaaliyeed inay aad iyo aad u ogaadaan aad muhiim u tahay tan labaad mooshinka waa aalada kaliya qofka xilwaanka isticmaali karo oo wax ku toosin karo wax ku sixi karo asigu qori ma qaato iska ma qayliyo laakiin mooshin waa soo jeedin marka mooshin waa afkala waa soo jeedin muxuu soo jeedinayaa xilwaanka wuxuu leeyahay dhibaatadaas jirto waa in si degdeg ah wax loo qabta golaha shacabka go'aanka u gaara tusaale ahaan arrintii badda markaan soo qaadano xukuumadii kumeelgaarka markay xukuumadii kumeelgaarka heshiis la galeen isla markii baarlamaanka jawaab degdeg uu ka bixiyay wuxuu uga hortagay waxay ugu jawaabay arrinta ay mooshin bay ahayd hadduusan mooshinkaas sameyn lahayn waa lagu kala tagi lahaa marka waa la qaadan lahaa yani dhabta idin sheegaya iyo waxyaalo kale fara badan oo badan dhacay qaabkaas lagu xalinay tii ugu dhaweedo DB Wall ayaan dhaweyd marka heshiiskii gobolada Soomaaliya ay qaar kamid ay la gaareen sida dekada Berberiyo dekada kale fara badan ay dalka ay qorshaha ugu jiray ay kula wareegayeen baarlamaanku waxa kale ugu hortageen wuxuu uga hortagay mooshin shacabka Soomaaliyeed oo mooshin marka ay maqlaan way inay ogaadaan in mushkilad jirto oo khatar baa la xalinaya inay fahmaan baa la rabaa maamul xumaa ka jirta baarlamaanka mooshin baa la keenay waxa la leeyahay 1 2 3 arintaas waa in la joojiyo sharci baa laga yaabaa aan muxuu ahay dan u ahayn dalka Soomaaliya soo xad garateen maahan waa in arrinka asiga mooshin baarlamaanka ka keena marka mooshinka marka ma xuma yaa loo fahmin taas waa tan mooshinka guud ahaan tan labaad saad ogsoontiin baarlamaankeena wuxuu ansixiyay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa ka hortagga musuqmaasuqa sharcigaas baarlamaanka waa la keenay wuu ansixiyay qofkii lagu arkay dambi weyn buu mutaysanaya hadduusan asaga raali ka ahaan lahayn lama ansixin lahayn laakiin waxaad ogaanaysaan anagu fasaad ma ogolin baarlamaanka daanahay musuqmaasuq ma ogolin marka taa ayada waxaan rajaynayaa inaad saas ugu caafimaadaan ugu dambaysa oo ah doorashada dhacaysa waxaa loo qoonteeyaan u malaynaa doorasho furan iyo mid xiran yaa marka oo guddiga doorashooyinkaas soo bandhiga soo ma marka arrintaa tee dooran lahayd mid oo dadweynaha oo dhan ka qayb qaataan iyo mid weli parliamentarian inay noqoto hadba horta doorashadu waxay ku xiran tahay fursadda jirtay ku xiran tahay fursadaha jiro dalku waxaa u dana muwaadin walba oo Soomaaliyeed oo meel Soomaali meel kamid ah jooga inuu codeeyo kan baadiyaha geela la jiro waa inuu codeeyaa kan beerta qodana waa inuu codeeyaa soo xad garatay maahan kan dawladda la joogo in ka xaq joogo ila dawladdu isku sabay ay muxuu ahay dawladdu ugu tahay qoom matelayna isku sabay u matelaan marka muwaadinka Soomaaliyeed waxa u dana doorasho ay wax wada dooranayaan qofka ayagu rabaan soo saarayaan in horta heerka la gaaro sida ugu quruxda badan laakiin duruufta mar walba xukumaysa duruufaha amniga had waxaan ognahay ogsoonahay dadkii ergada ahaa oo sanadkan
muxuu ahaay wax soo doortay iyo dadkii ergada soo xolayay ka shaqaynay dad badan baa la laayay ogsoontiin la dilay duruufaha amniga awood dad badan aan aqaanaa la dilay xataa ma ahan dad kale dad badan aan ugu garanayo xildhibaan ma noqon dawladdu ma shaqayn qaarkood waxaa laga yaabaa keliya inay wax taageerayeen oo ayaga wax taageeraya inta la ogaaday la dilay marka hadda duruufta hadda la joogo sanduuqa inta banaankan lasoo dhigo suurtagal ma noqonaysaa muwaadin walba oo Soomaaliyeed inuu codeeyo يعني حالتها أمنية هدي لقى بقى مواطن كصوماليات أمنية هدو خطر جلي لقى بقى نولشيس خطر إنه جليس لقى بقى مواطنين صوماليات نفط وضعنا يكوا أيان مسؤولية بسارن حلوانة تقولها شعبك إنه يكفي فكران قابك واحد بون كلا أو قفك مواطن كان أرتيس كل يبن كرم إن محو هاي دور شد النقطة تاسنو حاجو أنك جارا يقول دور شمر كيس صح صوب بندقة برلمان كان صح وفيريو أيضا لا آخرين يظروف تدلك كتاجر مركب قان برلمان كجاري دونه يواي لكن أنه وحن ديارين إن الشروع دي محو هايو دور شوينك إن دور حلالة أو ده فرون دلك إنه كده عذر أيامكم جامين دون إله ديره وما وهي برنامج كا هل ساعة بنقول ترى قلنا وحيرة كده من وحرب قفل بو للصين أيو إنه هل سؤال كبدًا إنه سويتين هل سؤال كبدًا قفك ويتي وكجوجينيا هي استاك أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحالنا مقعي وعبد الرحمن أحمد عمر waxaan weydiinayaa xildhibaanka ahna musharax u tagan xilka gudoomiyaha baarlamaanka shacabka Soomaaliyeed waxaan ognahay nidaamka uu dalka Soomaaliya ku dhisan inuu yahay nidaam federalism ah nidaamkaas oo keenay isqaabsi badan oo ka dhex jiro maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe arrintaas waxaan weydiin lahaa xildhibaanka sidoo macnaha ku wajihi lahaa awoodaha maamul goboleedyada iyo dawladda waxaan loo kala saari lahaa aye okay waaya su-aashaas waxaan u qaadanaynaa awoodaha maamul goboleedyada waxaan u dhigi lahaa midaasoo kale madashoo kale marka ay meesha yimaadeen go-aanay soo saaran go-aanay soo saarana baarlamaan ka hadlay ama u codeeyey ma jirto ama lasoo hordhigay sidaas daraaddeed ayaan weydiin doonaa marka su-aashaan saa ka dhigno madashu waxyaabaha ay soo saarto maxaa baarlamaanku inta badan loo horkeeni waaya adigu sama horkeenaysa haddaad guulaysato waa su-aashaasaan ka dhigaynaa haye بسم الله الرحمن الرحيم marka hore magacayga waa maxamed faarax ibraahim xasan cadde waad mahadsantahay marka hore sida wanaagsan aad u daadihinayso barnaamijka xildhibaanka maxamuud macalin yaxye isagana runaantii waa nin wanaagsan oo aqoon-yahan ah oo kasoo shaqeeyay hay-adaha samafalka gaar ahaan mug weyn ku lahaa jaamacaddii aniga aan kasoo qalinjabiyey jaamacadda muqdisho su-aasha aan weydiin lahaa waxay tahay laba su-aal baan watay laakiin inkastoo waqtigu uu nagu yaryahay hal su-aal ayaan weydiinayaa su-aasheedu waxay tahay mudane xildhibaan haddii allah subxaanahu watacaala uu kuu garto inaad xilka qabato maxaa kaaga aadan cadaaladda oo mid ugu horeysa ah oo dalkan u baahan yahay inuu ka maqan yahay cadaaladda dalka garsoorka dhisidiisa sidoo kale maxkamadda golaha shacabka dhisideeda iyadana arrintaasi ka baran maxaa kaaga aadan arrinta garsoorka haddii aan ku laabto dhalinyarada badanaa maanta ku xiran xabsiyada sida la wada ogyahay waxay u badan yihiin dhalinyarada jaamacadaha dhiganaysay iyo iskuullada oo runtii rag badan oo annaga naga haro jaamacadaha nala dhiganaya ahaayeen oo si maxaan ku yidhahdaayo oo cadaalad la-aan loo xukumay marka in la hagaajiyo garsoorka dalka iyo maxkamadda golaha shacabka oo xildhibaanka qabanaysay arrintaas maxaa kaaga aadan waa mahadsantahay waayahay waa mahadsantihiin ay su-aashaas kale hal su-aal kusoo koob hal ana dedejiyo hore ka gal su-aasha waa soo kooba bismillah alxamdulilah magacayga waa axmed cabdinaasir xirse canshuur xildhibaanka waxaan weydiin rabaa arrin yar oo jirta waxaa jirta shacabka Soomaaliyeed xildhibaanada maanta Soomaaliya jooga waxa ay ka aaminsan yihiin arrin negative ah xildhibaan kasta oo golaha baarlamaanka ka tirsan waxa uu sitaa dual passport ama group kasta
dual baasaboorkaas uu sito baasaboorka cidda oo ka wato ayuu mar kasta waxa ay ka shaqeeyaan danahooda ay ka shaqeeyaan taasina waxa ay keentay in golaha baarlamaanka oo isqabqabsi iyo dhibaato iyo muran joogto ah in uu ka dhex jiro mar kasta iyo mooshin taasina waxay keentay in ay shacabkii ka aamin baxaan xildhibaanadii see isku waafajin rabtaa shacabka iyo xildhibaanada arrintii ay ka aaminsanayeen si positive ah sidee rabtaa inaad isku waafajisa arrintaas waa mahadsanta waayahay saddex qofood waa ku hakinaynaa mar kale aan kusoo laabanayaa waayahay su-aalahaas federalismka iyo arrinta waa madashu inta badan go-aamada ay soo saaraan baarlamaanka lama horgeeyo lamana ogola inta badan weliga iyadoo ka doodeeda lama arkin maxaa haddaad guulaysata ka samaynaysaa taas horta qaabkaas uu ii weydiiyey walaalkeen waxa waaye cabdiraxmaan see awoodaha loo kala bixiyaa horta federaalkii aynu rabnay miyahay madka hadda jira soo mid kale wala horta federalism la qaadan lahaa federaalkii aynu qaadan lahayn weli nooma kala caddo annaga wuxuu u baahan yahay in la qeexo mad u qalma soomaaliya oo awoodda soomaalina aysan ku kala dhantaalmin keliya hadda waxaa waaye wax samaysmay oo xeerkii federaalka waxaa ka soo hormaray dhismiyaa ka soo hormaray weli xeer saxa ah looma dhisin marka taas ayada baarlamaanka ma ahan shacabka soomaaliyeed nooca noqonayo federaalka shacabka soomaaliyeed aa la weydiin doonaa go-aanka idinkaa ka gaarahay taas waa meesha madda xigta go-aanada ay gaarayaan madasha mase go-aan walba ay gaaraan xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedyada sharci ma noqonayo haddii golaha shacabka iyo baarlamaanka golaha sare aysan muxuu ahay labada baarlamaan aysan ansixin sharci ma noqonayo marka wax walba oo madasha yimaado waxay marka dambe u soo dhamaanayaan oo xalaaleynaya oo ogolaanaya golaha shacabka iyo golaha aqalka sare saasay sharci ku noqonayaan marka waan ilaalin doonaa haddii aan meesha tago in wixii go-aan xagga la keeno ay goluhu yimaadaan waaya maxamed cadaaladda iyo garsoorka cadaaladda iyo garsoorka dhibaatada soomaaliya maanta jirta cadaalad darrada qayb weyn ay ka tahay ma dhammaystirno dhismaha laanta garsoorka maxkamaddii dhismihii weli wax badanaa ka harsan maxkamadihii dastuuriga dhiman guddiga adeega garsoorka dhiman lama dhisin marka arrintaa ayada haddii aanan cadaaladda sal u yeelin dowladnimadeenna dhaawaceed weli dhaawacan bay ahaanaysaa muwaadinka soomaali waa inuu helo cadaalad muwaadinka soomaaliyeed waa inuu helaa hay-ada garsoor iyo hay-ada amni uu ku kalsoonaan karo waa inuu helaa muwaadinkii dacwo soo qabsato lasoo dacweeyo waa inuu cadaalad heli karaa cadaalad waa inuu heli karaa taas ayada waxyaalaha waxay ii tahay oo beeska ii ah oo ilaahay hadduu yidhaahdo kursiga igu guulay aan ka shaqayn doono oo muwaadin soomaaliyeed oo in la isaga haysto si dulmi ah cadaalad darro ah insha allahu tacaala ma dhici doonto waxaan la kaashan doonaa hay-adaha ku shaqada leh ayaan la kaashan doonaa annagu maxkamad ma ahin cadaaladda maxkamaddu waxay soo dacweyn kartaa xildhibaan ma garanaysaa dembi haddii lagu hayo xildhibaanka markaas waa lasoo qabanaya qof madaniya dacweyn karo dacwada oo madaniga ah qofka xildhibaanka waa la dacweyn karaa waa weydiin karaa marka muwaadin walba ha noqdo qof mas-uula iyo qof aan mas-uul ahaynba waa inuu helaa garsoor cadaalad uu ku kalsoonaan karo waayahay baasaboorada ajnabiga ah baasaboor ajnabi ma sheegin ninkan wuxuu yidhi baasaboorka xildhibaanadu danahoodun bay ka shaqeeyaan horta xildhibaanada kuwii idin matelayo saas miya baasaboorka maxaa ku sheegtay marka waa dadka baasaboorada ajnabiga wata soo ma ha macnaha tusaale ahaan kaba soo qaado kale qofkii britain baasaboorkeeda wata ama wadamo badata inta badan waxaa laga yaabaa safaaradaha in uu caan oo ay ayaga la shiraan marka oo dantii ay ka horumariyaan danta dadka wadamada ay baasaboorada ka haystaan soo ma haye maxaa laga yeelayaa horta waa muwaadiniin soomaaliyeed oo runtii
shacab Soomaaliyeed aan mas'uuliyadda ku soo aaminay u soo dhiibin in baasaboor ajnabi la qaato ma qofku muwaadinka Soomaaliyeed qaato duruuf baa ku kaliftay naftii bay la baxsadeen saad ogsoontiin wax iska yimaadeen ma aysan ahayn waa carareen markay meelaha tageenna waxay qayb weyn ka qaateen in badan oo shacabka Soomaaliyeed inay badbaadiyaan noloshooda ay kafaalad qaadeen marka aniga waxay la tahay ma dhihi kari danaha Soomaaliyeed kama shaqeeyaan aniga waxaan aaminsanahay danaha Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan waayo dan Soomaaliyeed haddii aysan ka shaqeynayna qof Soomaaliyeed oo codka soo doortay qof danahooda ka shaqeynaynin markii hore ma aysan soo dooran lahayn marka aniga waxaan qabataa ayada in baasaboor ajnabiga in la qaato dhama lahan sharcigeena dastuurkeena oo yaalana ma diidaayo gaar ahaan shacabkeena Soomaaliyeed waa kala firxada dhacay dalkii baa burburay shanta qaaradood baa lagu kala qaxay marka in dambi looga dhigo baasaboor ajnabi wata xil iyo mas'uuliyad looma dhiibahay taa anigu ma qabo waa ma aad u maasha waxaan ku soo gabagabeynayaa gabadh aan u maleynaa inay microphone-ka haysato markii haye adoo istaagay wajigaaga looma jeedo magacaaga ku bilow bismillaah magacaygu waa Asma Ismaan Cali aad baan u salaamayaa xildhibaanka adigana sidoo kale aad baan ku salaamayaa waxaan doonayaa inaan weydiiyo mudanaha sidaan la wada socono shaqaalaha rayidka waa 5,000 iyo something haddii la eego dhanka dumarka waxay ka tahay 1,000 iyo xoogaa marka haddii even aad ku guulaysato kursigan maxaa kaaga qorsheysan gabdhihii wax bartay magaaladii wada joogaan by half way maxaa kaaga qorsheysan haddii even aad ku guulaysato mid xigta waxaan ku weydiin lahaa dastuurka maxaa u diiday koontada haweenka inay isku soo sharxado kursiga caynkan oo kaleeta waad maasantahay kursiga gudoomiyaha baarlamaanka inay soo sharaxdo okay Asma Umar Ali haye gabadha kale bismillah magacaygu waa Maryan Axmed Ismaaciil Maryan miya yes waxaan weydiinayaa xildhibaanka meesha fadhiya aftidii dastuurka ee la aruuriyay mahad cabad wuxuu yiri farqo ma hayna haddii aftidii shacabka iyo rabitaankii la dhumiyay sidee u bixi karnaa kumeel gaar dastuurka kumeel gaar sidee wadanka ugu saari kartaa ma fahamta fiican haye waayahay labadaas gabdhood aan kusoo gabagabaynaynaa adigoo raalli ah waqtigii xoogaa waa dhacay haye bal haye bismillaah magacaygu waa maxamuud cusmaan maxamed mudane musharax sayid ognahay dhalinyarada ku dhaw dhalinyarada oo u bixi dalka dhalinyarada waa dadkii berita bedeli lahaa musharaxiinta ama dalka mas'uuliyiinta xilka haya dhalinyarada laakiin hore loo weydiiyey su-aashaas 2 mar 3 mar la weydiiyey maya jaanis hal isiiyo saan ogsoonahay jaamacadaha dalka waxay soo saaraan rag fara badan oo yaqaana marka laakiin qofka markuu dhiganayo jaamacadda dhiganayo niyadiisa wuxuu ku saabaya markaad dhamayso jaamacadda dhamayso waxaad heli doontaa shaqo fiican laakiin markay shaqo imaato su-aasha urisa lagu weydiinayo waxay tahay meeshan adeerka ma joogo micnaha marka qofkii dhalinyarada ahaa ee shaqadoonka waxaa ku dhacayso niyadjab midaasna qofku waxay ku qasbaysaa inuu tahriibo ama haddii kale waxyaalo kale oo liid ku ah dowladda inuu sameeyo marka midaasi ka musharaxaan adiga maxaad ku bedeli lahayd midaas waayahay saddexdaas aan kusoo gabagabeynaynaa oo su-aalihii adinka aa weydiin lahaydeen haye guddoomiye Asma Maryan iyo nin yarka magaciisa ma sheegin Asma waxay tiri maxaa kaaga qorsheysan maadaama shaqaalaha dawladda ay aad u badan shaqaalaha rayidka gabdhuhuna ku yar yihiin horta waxaan u maleynaa 1,000 xooga horta bilow fiican waay aad aan ugu faraxsanahay runtii intaas inaan kasii badino gabdhaheena Soomaaliyeed burburkan wixii ka horreeyay يعني سادو كسونتي محافظها لو هنجري هذا قبله هو صبحا عاد ما حبي أوبرتين runtii intaan ogahayna wiil ayagu markay kulmaan xafiisyada mashaqooyinka ku kulmaan priority aan la siiyay intaan ka ogahay marka aniga insha Allah ta'ala waxaan sameyn doonaa gabdhaheena gaar ahaan kuwa wax soo bartay iyo kuwa aan waxba soo baran kulligooda fursado shaqo in loo sameeyo aad bay muhiim u tahay ana baarlamaanka aad baan uga qayb qaadan doonaa baarlamaanka saad u suntii aad iyo aad dadka aad ugu badin shaqaalaha baarlamaanka waxaan dhihi karaa haddaysan ugu badnayn ay ugu badan yihiin
ayaan rajeynay aad iyo aad ay ugu shaqeeyaan waana sii dhiirigelinaynaa insha allah inaan u abuurno fursado kale kursiga maxay gabar ugu soo tartamoysay cid u diiday lama arko uma aanan diidin runtii hadday usoo tartamoysayna cid ku qasabtay ilaa gabar ha soo istaagta lama dhihin laakiin looma diidin taasaa marka maxaa yeelay hadda kahor gabar waa isku soo sharxad ustaad ogsoontiinba 2010 gabaraa usoo tartantay wasiiradii wasiir gudoomiye ku-xigeenka ahayd sanadkii dhaweed baa u tartantay khadiijo maxamed tiiri marka taas ayada mar walba fursad waa furan tahay marka gabadhii Soomaaliyeed oo u diyaarsan baarlamaankaas inay hogaamiso oo ku soo dhiirato waa la soo hogaaminay laakiin 576 labaan gabar waxaan maleynay ku dhibtoon doonto naftirkeeda laakiin waa soo dhaweynaynaa aad u soo dhaweynaynaa hay su'aasha gabadha kale Maryam horta dastuurka waxaa la yiri waa la xaday horta dastuur la xaday ma jiro kullu cidii tiri ayaa habboon la weydiiyo waa ku dhaqanna waa inoo yaala waa laga yaabaa inaan muxuu ahaayo on khaladaad ka sameeyno waa suurtagal hoggaan fiican inuusan helin oo dastuurkaas xaqii uu lahaa in la siiyo haddii ay noqon lahayd isbedel in lagu sameeyo dib u eegis lagu sameeyo laakiin waxaa ila habboon haddii la yiri waa la xaday ciddii xaday iyo waqti laga la xaday email ku maqayhay ciddi sheegtay la weydiiyay ila tahay waa mahadsantiin waa yahay aad baad u mahadsantahay waa mahadsan tahay horta ilaa hadda aniga waxaan ogahay guddiga dib u eegista arrimaha dastuurka ee madax bannaan oo baarlamaan shaqo ku lahayd guddiga dib u eegista baarlamaanka oo labada gole ka kooban oo madax bannaan horta annaga dadkaas aan ku ognahay faraha ku haya ayagaasa mas-uul inooga ah warbixinay inoo keenaa ayagaan kula xisaabtannaa marka waxay ila tahay meesha la geynayo ma jiro weli dastuurku waynu haysanaa ka shaqayntiisna annaga ina sugaysaa hoggaan fiican oo muxuu ahaayo ka shaqeeyo waa wax la raadinayo insha allahu tacaala waxaan priority-ga siin doono waa kow asaga kow iyo asaga laba iyo asaga saddex iyo waayahay ninka dhalinyarada su-aashiisa ka waran oo su-aasha waxay ku saabsaneed dadka jaamacadaha dhalinyarada ka soo baxday ya haye oo shaqo la'aanta soo ma hayn dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay ee aan shaqo la'aanta soo ma macnaha dadka garabka lagu geeyo soo ma shaqada haye horta waa mahadsantihiin shaqooyinka waa labo qaarna waxaa waaye inta lasoo bandhiga ayaa loo tartamaa qaarna waxaa laga yaabaa in muxuu ahaayo si toosa hay-adda markaas uu qof ka dalbay qof geeyo saad ogsoontiinba dee waddankeena dhibaatada ka jirto waad ogsoontihiin duruufo amni ayaa jiro amni darradii meel walba ay soo gashay marka qofka markanta shaqada la geynayo oo hay-addan qaranka mas-uul looga dhigahayo in wuxuu yahay la ogaado waxba ceeb ma ahan waada duruufaha maanta jira ayaa keenay maxaa yeelay dad badan inta lasoo dhaweeyey oo fursado loo abuuray oo dhibaatooyin geystay ayaa jira dhibaatooyin geystay salfaday dad badan oo muxuu ahaayo muwaadiniin ah naftooda marka in la fiiriyo dhib ma aha laakiin hal xab waa idin xaqiijinaya in shaqo la'aanta ay jirto shaqa muxuu ahaayo dawladdeennana awooddeeda ay yar tahay laakiin waddanka markuu kala furfurno amni la helo shaqaalaha wuxuu inooga imaan doona dibadda carabi cajambi way inoo imaan doona halkaan ay ka wada shaqayn doonaan insha allahu tacaala waayahay waa mahadsantaha laba su-aal aan kusoo gabagabeynaynaa musharaxiin badan ayaa sharaxan oo aad adigu ka mid tahay qof aad u tanasuli lahayd ma jiriyaa waa mahadsantahay waa su-aal horta iska xaraja iska dhib badan laakiin kulleyba aniga hadda waxaan ku talagalay inaan tartamo ayaan ku talagalay inaan tartamo in la ii tanasul maahan in la ila tartamaan rabaa in la ila tartamaan diyaar u ahay maxaa yeelay wasiiraha xilalkooda ka soo tagay ayagoo wasiira ah
marka haddii wasiiradii xilkooda ka soo tageen ee uu ka soo degeen waxaan u maleynayaa xildhibaan oo hadda xildhibaan keliya joogay oo uun shaqadii baarlamaanka isaga tag waxaan u maleynayaa inay adag tahay aan filaya inay adag tahay waayahay baaq marka maxaa diraysaa oo aad jeclaan lahayd inaad xildhibaanada caawa ku daawanaya shacbiga laftirkooda xildhibaanada saameynay ku leeyihin oo waa laga yaabaa waxaan arki jiray xilligii farmaajo la tooranay dad badan baa waxaa la yidhi xildhibaanada waxaa u tagaa la yidhi beelahooda u tageen haddaad nimaan asaga ahayn doorato iska ilaali baa la yidhi marka maadaamay awooddaas leeyihiin maxaad u jeedinaysaa runtii waxaan u jeedinayaa horta halna waxaan leeyahay xildhibaanada golaha shacabka halna waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed xildhibaanada golaha shacabka waxaan leeyahay maanta ayay fursad haystaan maanta ayay dooran karaan ninkii danaha qaranka soomaaliyeed ka shaqayn lahaa maanta ayay jaanis haystaan ninkii danahooda ka shaqayn lahaa maanta ayay fursad u heli karaan ama wax diidi karaan ama wax ogolaan karaan badbaadinta qaranka soomaaliyeed maxaa yeelay guddoomiyaha golaha shacabka qofkii labaad dalka marka inay aad iyo aad ugu fiirsadaan ay ka fikiraan yaa dalkan daacad u noqon karo yaa muxuu ahaayo badbaadada qaranka maanta qayb weyn ka qaadan karo inay ka fikiraan yaa danahan golaha maanta taagan yaa waxa laga muxuu ahaayo aad gacan qof hiba haddaad gacan siinsaa wax ka bedeli karo inay ka fikiraan anigu waxaan isu haystaa qofkii noocaas ahaa oo wax ka bedeli lahaa insha allahu tacaala waana noqonaya ilaahay hadduu igeeyo baarlamaan oo sharaf leh oo qiimo leh oo karaamo soomaali adduunkaba ku leh inaan ka dhigo ayaan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynayaa anigoo kaashinaya xildhibaanada sharafta leh tan labaad shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay aniga muwaadin soomaaliyeed baan ahay oo dalkan ku noolaa oo ku barbaaray aanan meelna ka aadin oo muxuu ahay danihiina dhabka iyo dheefta aad qabteen idinkula jiri ogsoon ilmaha yaryar xanuunsan duruufta ay ku nool yihiin waxay u baahan yihiin og gabadha xaamalada ah oo muxuu ahay dhiig la'aan xaafadaha ugu diican waxay u baahan tahay ka warhaya qofka masaakiinka ah oo buushashku ku jiro duruufta haysato ka warhaya dhalinyarada soomaaliyeed duruufta haysato sadhaba maxaa yeelay anaa dhalinyaro ku ahaa weli haddeen circaanoodkun baad arkaysa maa naftikee dhalinyaro ahay saa uma weyn dhalinyaradan ka mid ahay xanuunkii ihayn jiray inuu hayo dhalinyarada soomaaliyeed aan ogahay sidaa daraaddeed shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay taageeraan codkooda igu taageeraan duco igu taageeraan gacan isiiyaan anu waxaan idin ballan qaadayaa ilaahay hortiisa in insha allahu tacaala aad imahadin doontaan qaranka soomaaliyeed dhanna aad mahadin doontaan waayahay aad baad umahadsan tahay insha allahu tacaala waan u wada ducayn doonaa haddii uu ilaahay la doono inuu ku guulaysto xilkaa uu isu soo taagay insha allahu tacaala aad baan ugu mahad celinayaa xildhibaan ahna musharax ka mida musharaxiinta xilka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamuud macalin yaxye oo runtii nin maaragtay xag diin aqoon diin lagu tiri karo aqoon samafal lagu tiri karo gargaar lagu tiri karo dalkan aan ka bixin xaaladiisa la socda dadka og ma garatay marka insha allahu tacaala waa u rajaynaynaa inuu guulaysto waxaan u mahad celinayaa farsamo yaqaanada caawa telefishinka somali cable farsamo yaqaan caylaawe oo stuudiyaha telefishinka somali cable ee magaalada muqdisho jooga farsamada quruxda badan noo hagayay farsamo yaqaan ismaaciil allright oo isaguna kaamerooyinkan quruxda badan noo kala duduwayay farsamo yaqaanada jooga stuudiyaha telefishinka somali cable ee magaalada london farsamo yaqaan cabdisamed bashiir bocor iyo farsamo yaqaanada kale ee stuudiyaha telefishinka ee magaalada london ee sawiradii aad daawanayseen ee quruxda badnaa ee samafalada iyo waxyaabaha isugu jiray iyaga noo soo saarayay waxaan kaloo u mahad celinayaa dhalinyarada kasoo qayb galay barnaamijkan caawo oo runtii weliba wakti dambe loo sheegay haddana yimid si ay su-aalo u weydiiyaan musharax maxamuud macalin yaxye anigoo ah soo saaraha barnaamijkan yaa mudan
oo yaa darajo iyo xil yaa mudan ayaa ku qoran marka qofkii ilaahay u dhiibo ha noqdo kii maaragtay ummaddiisa u adeega waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu